wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka qayb galay shirka shanaad ee booliska adduunka Interpol oo looga hadlayay la dagaalanka ka ganacsiga dadka iyo tahriibka. shirkan ayaa ka qabsoomay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar 6 iyo 7 bisha December, waxaana ka soo qayb galay wufuud ka kala socotay dhammaan dalalka caalamka. dhinaca kale, wasiirka amniga Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Qatar oo uu ka mid yahay wasiirka maamulka horumarinta shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalka Qatar. waa kan wasiirka amniga oo ka waramaya. marka hore waxaan rabnaa mahadcelin TV-ga qaranka intaas kadib waxaan nimid dalka Qatar ani wafdi aan hogaaminayo. wafdigaas wuxuu yimid shirka dhacay meeshan oo soconay 2 maalmood 6 iyo 7. shirka arrimaha looga hadlayo waxaa ka mid ah Interpolka iyo isu socodka wadamada dadka qaxootiga isu maraan ama tahriibayaasha ay u galaan sidii looga hortagi lahaa iyo dhibaatada loo geysto markay tahriibayaan ee meelaha marayaan. waan la ogsoon yahay Soomaalida ama Afrikaanka waa dadka ugu badan oo waxaas la kulmo hadda aan lahayd gabdhaha la kufsado ama dadka la dilo ama dadka rakaata lagu haysto. waxaasna shirku ka hadlayay. marka si goorin waxaan isku aragnay wasiirka maamulka horumarinta shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalka Qatar. waxaana isdhaafsanay sida labada wadan Soomaaliya iyo Qatar ee se kaashan lahayd hadii noqon lahayd xiriirka Interpolka ay sidoo kale in dadka Soomaaliyeed ee fursad loo siiyo tababar la siiyo sidii looga hortagi lahaa sidii dadkaas tahriibayo oo matala Soomaalida kamid in shaqo abuur loo sameeyo. waxaan ka wada hadalnay in si fiican aan soo afgarnaa Ilaahay raado waxaana sameeynaa labada wadan focal point oo arintaas ka sii shaqeeya mustaqbalka Ilaahay raado. Soomaalida ayaa qayb ka ah dadka dhibaatooyinka kala kulma tahriibka, waxaana shirkan ku soo beegmaya xilli dhawaan ay soo shaabaxday dhibaatooyin baaxad leh oo dadka muhaajiriinta lagu geysanayo dalka Liibiya. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka magaalada Dooxa.